Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaam dhammaan walaalay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale iyo walaashin Xabsa Shire. Kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta waxaan idiin wadaa mowduuc ku saabsan korinka caruurta. Video hore ayaa jiray oo aan kaga hadlay cunuga marka uu dhasho ilaa uu 3 bilood kasoo gaarayo. Kii ayuu ku daba xigaa oo waxaan maanta ka hadli doonaa caruurta markay 3 bil gaaraan ilaa 6 bilood isbedelka ku dhaco iyo waxyaabaha hooyada laga doonayo. Ilmaha waxa waaye si fudud oo boobsiis ayay ku koraan mar cunuga hadduu dhasho, yacni waa adaa asoo iska weynaada arkaysaa Soomahan. Marka hooyo walbo ilaahay loo koriyo caruurteeda intaa hiisan ilaahay ha siiyo. Marka ilmaha markay 3 bil soo gaaraan waa xilliga oo inta badan hooyada dhafarka uu ka yaraado because bilaa ugu horeey ilmaha way oohin badan yihiin, naaska si fiican meesha ula qabsanin, hooyada weli xanuunkii oo umushi ahaayo ama qaliin ha ku dhasho ama caadi ha u dhasho. 3 bil waa 3 bil hooyada ee soo kabanaysa ee reysanayso, waana 3 bil oo ugu adag oo cunuga uu ugu dhibka badan yahay oo intuu naaska la qabsanayo oo intuu adduunkan uu soo galay uu la qabsanayo, ma fahanteen? Marka cunuga 3 bil markuu uu soo gaaro waa markii uu bilaabayo farxadda iyo dhoola cadeynta uu baranayo cunuga. 4 bil markuu cunuga soo gaaro wuxuu bartaa dhoola cadeyn fara badan, qosol, hadaaq, lugaha iyo gacmaha inuu tuurtuuro, inuu dadka agtiisa joogo uu dareemo, haddii qof agtiisa uu ka hadlo uu soo fiiriyo. Isbedelka jirkiisa ku dhacan waxaa ka mid ah cunuga inuu isroogi karo 4 bil ilaa 6 bil, markii xabad loo dhigo uu qoorta ceshan karo, markii wax loo dhiibana uu qabsan karo. 5 bil ilaa 6 bil markuu soo gaarane cunuga gacmaha markaa soo qabatid aa fariisisid inuu fariisan karo, xoogaa uu iscelin karo. Markuu xoogaa yar fadhiyin wuu dhacayaa. Marka maxaa muhiim ah inaad barkimaha u dhigtid cunuga markaa baraysid fadhiga. Waxaa jira barkimo loogu talagalo ilmaha fadhiga lagu baro haddii ay haysan kuwa caadiga ah, bustooyin iyo wax hooyo kasta waxaa la rabaa iyada inay ismacbileyso Soomahan. Wax hadaa haysanin xataa waa la ismacbileeyaa. Waxaa kaloo jiro cunuga wax walbo loo dhiibo inuu afka gashanayo xilligan, maadaama ilmaha gacantoodii afkooda ay barteen dhaqdhaqaaqa gacmaha dhaqaaqiisa ay barteen, wax walbo u dhiibtid afkay gashanayaan, adiga gacantaada inay qabsadaan fartaada afka la aadayaan, ayaga faroodi afka la aadayaan. Marka waxaa muhiim ah horta nadaafadda inay hooyada kula dadaasho ilmaha. Asaga weli wuu yar yahay oo ileen meel nadiif uu joogaa, laakiin qofka oo haayo fariis inuu dhaqan yahay mar walbo. Alaabta u dhiibaysid faraha inaa mar walbo alaabaha u dhiibaysid cunug ku ciyaarsiinaysid inay ahaadaan kuwo nadiif ah. Waxaa kaloo jiro inaadan u dhiibin ilmaha babyga yarka inaadan u dhiibin wax yar oo afkiisa ku tagi karo, macnaha uu laqi karo oo aad ka ilaalisid halista. Waxyaabo waaweyn shay asiga uu qabsan karo oona afkiisa ilaa dhuunta tagi karin aa loo baahan yahay, sida qaandooyinka caaga, waxyaabaha rattleska la dhaho, geedaha shalaqda oo ilmaha loogu talagalo oo dhawaaqa sameynayo. Inaa u dhiibtid cunug waxyaabo kalar leh, kalaro kala duwan, cagaarka, buluug, jaalaha, si indhihiisa ay u bartaan kalarada kala duwan. Waxaa kaloo jiro cunug mar walba inaa xabad u dhigtid ayaa muhiim ah. Tookada horena waan ka hadlay, taasna waxay ka saacidaysaa cunuga inuu adkaado oo dusha u adkaato, qoorta u adkaado, inay u fududaato hadhow gurguurashada inuu barto. Mar walbana aad ku daynin, laakiin cunuga xabad markaa u dhigtid cabaar ka gedisid oo haddana caadi ka dhigtid. Mar hadduu isgediska bartana mar walba asaa isgedinaayo, maba kaaga baahna adi caawimaad. Laakiin inta ugu horeysa 3 bil ugu horeysa waxa waaye caawimaad uu kaa rabaa oo inaa gediso uu kaa rabaa, laakiin mar hadduu 4 bil soo dhaafo kadib asagaa isgedgedin karo. Marka waxaa fiican cunuga waxaa kaloo jiro xilligan 3 bil ilaa 6 bil ilmaha qaar waxaa u soo baxay ilkaha markay soo baxayaan iyo waqtiyada ay soo baxaan. Waxaa jira video aan kaga hadlay, haddii aad u baahan tahay fadlan channelka gadaal ugu laabo waa soo arki doontaa, ama linkiga ayaa hoos idin soo dhigi doonaa. Marka waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka faa'iideen. Hooyada waxaa laga rabaa ayadana cunuga inay u sheekeyso, markuu hadaaqa way ka daba hadasho, sheyada agtooda yaal ee u sheegto, kan saas waa cunuga hadal ma yaqaano, laakiin muhiimadda waxbaa luqadda ayuu ku baranayaa. Communication-kiina aad u fiicnaanaa. Hooyada markay cunug u sheekeyso farxad uu dareemayaa, wuxuu dareemayaa in lala joogo, marka uu soo jeedo lala hadlo, lala sheekeeyo. Marka u qabeysid oo kale u daliigtid ilmaha waxa waa xilliga qabeyska ay jecel yihiin waaye ee aad ugu farxaan qabeyska. Marka marka isbedelkaas ayaa cunug ku dhacay. Ilmo qaar waxaa jiro 6 bil markay soo gaaraan si fiican u fariisan karo ayagoo wax support u baahneen.
kuwan waxay u baahan yihiin in la taageero barkimo iyo wax loo dhigo ilaa si fiican salkooda dhulka uga qabsanayo. Marka 6 bil ugu horeysa markay cunuga u dhamaatane waa waqtiga ilmaha loo bilaabo cuntada. Inta badan dad waxaa jira ku bilaabo 4 bil, laakiin aniga ahaanteyda ma jecli, waxaan jeclahay ilmaha 6 bilood markay sas ugu dhamaato in loo bilaabo oo maalmaha bisha 7aad ee u bilaabato in cuntada loo bilaabo. Cuntooyinka loo bilaabana cuntooyin fudud ay yihiin. Insha Allah waa kasoo hadli doonaa videogeena xigo. Soo dhawaada, waa mahadsantiin dhamaantiin. Jazakumullahu khayr. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.